daran been abuurkii ka baxay xukuumadda oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la yaabay doodii madaxweynaha markaan dhageystay habeennimadii wuxuu yiri faas baa qaar gacmaha lagaga gooyay qaar baa toori laga dhacay qaar baa xabad lagu riday buudi meel alla meel ay dadkaasi yeelaan oo askarta xabadda laga dhacay yeelaan anigu ma hayno xaaladda guud ee dalku dhan kasta markaad eegto waa xaaladda cakiran weeye aad baad mahadsantahay mudane gudoomiye iyo mudanayaal xaaladda guud ee dalku dhankaadu kacdaba aad buu akranta waxaa saa u leeyahay sicir bararku isaga waxba layskama weydiiyo dadka maadaragtay inta xafiisyada waaweyn joogta ee wax karsataa waxaa la yidhi saantii docdooda iyo daaradooda roobka helay waxay tidhi doogwarrac weey xagga wadajirka iyo midnimadana dadku aad bay u kala qaybsan yihiin qulubtooda iyo wadajirkoogu wixii lagu wada socdayna waxaad moodaa inuu ku dhow yahay meeluu uu ku jabo inuu ku dhow yahay baad moodaa inta keliya 30 sannadood laga shaqaynayay la kuulkuulinayo waxay ahayd doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda kaasina maanta meel lagu sheego iyo cid ku niyadsan halkuu ku dhammaan doono kaana lama yaqaano waxaase ku horeynayaa waddanka mudaharaad baa ka dhacay intaynu fad saxa ku maqnayn mudaharaadkaasi anigu waxaan u aqoonsaday dadka reer Somaliland ee wihiin inuu yahay banaanbixii ugu dadka ballaadhnaa ee ka dhacay jamhuuriyadda Somaliland gobolladii ugu ballaadhnaa isku meel kaliya ka dhaca waxaa kaloo la isla qiray inuu ahaa banaanbax silmiya oo loo abaabulay si xarraga leh oo loo abaabulay sida banaanbaxyada casriga ah oo boodho la daabacday ku qornaayeen doorashada doonaynaa ay ku daabacnaayeen waxaase ka dhashay wax afkala qaad ku noqday dadka reer Somaliland ee caafimaadka qaba iyo diida caalamkaba ay la yaabtay ka dhacay waxa ka dhacay mudanayaal wixii guddiga joogtada intuu soo baaray isagoo muxaafidkiisa iyo mucaaradkiisa isku dhan uu noo soo bandhigay ba ka dhacay waxa la dilay dadkii ugu tirada badnaa jamhuuriyadda Somaliland iyagoo aan kamaradihii la duubay ee shacabku duubay ee factiska ahaa aan la haynin qof kaliya oo dhagax tuuraya aan la haynin waxa ka daran been abuurkii ka baxay xukuumadda oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan la yaabay doodii madaxweynaha markaan dhageystay habeennimadii wuxuu yiri faas baa qaar gacmaha lagaga gooyay qaar baa toori laga dhacay qaar baa xabad lagu riday buudi meel alla meel ay dadkaasi yeelaan oo askarta xabadda laga dhacay yeelaan anigu ma hayno kuwa gacmaha faashka lagaga gooyay meel ay yeelaan maanaan arag qof kaliyaata oo 5 qodob la tulay dhakhtar yaalo askariyana anigu maan arag wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland maxamed kaayil axmed ayaa galigii dambe jimcaha wuxuu booqday dhakhaatiirtii dadka dhaawac yeeleen ma jirto hal sawir oo laga soo qaaday soo booqanaya askar iyo hay'adaha amniga dad ay lahaayeen oo la dhaawacay maxay dhakhaatiirtu wali waayeen waxa weydiinayaa askartii faashka lagu dilay halkeega yeelan ay xukuumadda weydiinayaan hay'adaha amniga weydiinaya maxaad madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland beenta ugu sheegteen waxa ugu xun ee ummadna ugu jaraabiyaa waxa weeye in ra'iisul caamka dalka been loo sheego hay'adaha dadka ku hooseeya been sheegan waana cudur daaraya madaxweynaha waayo ninka guriga jooga ee aqalkaas ciidanku ku hareeraysan yahay jooga xogta loo keeno buu ku amal falaya xog beena loo keenay hay'adaha iyo mas'uuliyadda qarankana madaxweynaha waxaan ku soo jeedinayaa inuu kula xisaabtamo cidii beenta sheegto qodobka koowaad qodobka labaad golaha wakiilada waxaan soo jeedinayaa in mas'uuliyadda beenta iyo matarawaga habowgaas sameeyay in been abuurkaas sameeyay qaranka isku jabin gaaray waayo wuxuu ku xidhnaa amar uu madaxweynuhu bixiyo yiraahdo haddii 60 askari faash iyo xabad lagu riday gal wallahi in la yiraahdo ku xidhnay dambigaana waxa qaadi lahaa kuwaas qaadi lahaa beenta sheegay madaxweynaha waxa la mudana madaxweyne hadda kadib warbixinta lagu keenayo inaad iska hubisaa wanaagsan waxa arkay qof dhalinyaro in yaro ciyaala oo inta soo meel uu qamaraya gaari la dabeeriday halka lagu toogtay banarkii kamay dhicin Somaliland
qof hadday keenaan hay'adaha amnigu isagoo dhagax tuuraya oo sidaa leh xabad lagu dhuftay booramaanu taagnaa 2007 ma garanayo inaan constituency-ga anigu aan xildhibaanka way ka soo jeedaa ayaa waa tala mudaharaada calaamaadta la soo baxo isagoo dhigta cala saaraya lagu toogtay sax weeye wax dhici karo oo la qaadan karo weeye waxa la oranaya calan buu ku xoriyay meel Soomaali meel ku xoriyay waa wax la oran karo qof alla wax baray karo in kastoyna aan qof calan lagu dili karin meel ku xoraya qof dhagax tuuray lagu dili karin hal justification oo dilka loo sameeyo loo qaadan karana ilaa maanta lama hayo kaasi dadkii dambiga galay waxa doonaya in maaragtay eedaasi galay in maxkamad la soo taago waxa la bartay in inta dadka la laayo in idaacada leedahay laga sii daayaan la aqoonin waxa weeye kaantaas ka baxaya waxa rabaa in su'aalo muhiim isweydiino yaa dilay shacabka askartii dishay meelka joogan yaa bixiya marka rag amarka bixiyay halkay joogan ma jira cudurdaar lagu dili karayo dadkaasi kaasina waa maya meel hal saaran leena kaas intaas kaga taginaa waxa kaga qodobkayga labaad su'aalo leeyahay baa ka hadlaya waxa arkay rag hantida qaranka isticmaala oo heshiisyadii lala galayna ay bureen ama waqtigoodu gabagabo ku dhow yahay oo haddana dadka ku tiqtiqsanaya masaakiinta tiyaatarkii qaranka meel loo sheego fooqii laba loo qeybiyo heshiiskaasi tiyaatarka qaranka qaybta xagga u jeeyta waxa loogu talagalay in markuu ganacsadahaas dhisa qaybta tiyaatarka hoolka qaybta anuurinta iyo madadaalada loogu talagalay markuu dhiso inuu qaybtaasi uu ku shaqeystaa loogu talagalay fooqayntii ku shaqeysanay ganacsadahaas uu dhameystiray goor waxaan weydiinayaa ila aydid goor mu dhamaanaya qaybtii shacabka ee xaruntii anuurintu goor ma dhamaanaysa goor ma adigu noqotay doonar adigoo dadka ka kireeyay isagoo ka kireeyay dadka maxaa la yiraahdaa xaruntii hanuuninta rugtii hanuuninta madadaalada isagoo ka kireeyay waxaan leeyahay heshiiskaasi waqtigii loogu talagalay waa dhammaad inuu heshiiskaasina uu maaragtay uu dawladdu dabagasho golaha uu dabagalo oo tiyaatarkii qaranka la furo si ummadda loo hanuuniyo oo rugtii fanaaniinta iyo dadkii xigmadda lahaa waxay xarunta bandhiga maskaxda bini'aadamka iyo horumarteed maanta waxay noqotay xarunta bandhiga tamaashiirta iyo basasha iyo tamaandhada halkee caqligii iyo wadajirkii ummadda lagu sheegaya halkee baa laga doonaya taana waxa weydiinaytaa waxa kala rabaa in meel lagu sheego rugtii akhriska dhalinyaradu meel la meel ee gaandi waxaan arkay berigii waxa la yidhi markii gaandi la raray dugsiga Sheekh Bashiir baa lagu duulay qayb baa laga goostay markii qayb laga goostay ayaa la yidhi halkaas loo raray halkiina maanta waxaan arkay iyadoo shirkado cusub iyo kambaniyo kira laga sameystay halkee dadku wax ku akhrisanayaan halkee ay dadku wax ku akhrisanayaan waa su'aal kale arrinkaan inaan shacabku isweydiiyo gaandina meel ummadda loogu sheegaa soo jeedinaya suuqii waa heen waa gubtay dawladdu lacag bay ururisay ilaa maanta iska daa inay dhisto qorshihii cusbaa ee suuqa waahayne kii ay shacabku lacagtii ay haysteen ay fooqyadoodii marka haddii hawl kale soo dhex gasho doodeeda waa sii wara karaa waa hakinaya soo maha hawl baa joogto ma hakiya guddoomiye haye waan hakinaya way laakiin way sii soconaysaa doodeeda madane markhaati baa kaanaysa